وصحبه وسلم أجمعين. maanta oo taariikhdu ay tahay 6 February 2021 aan joogo magaalada Samareeb uu yahay waxa aan ku jiray shirkii Samareeb tirin 4 oo soo socday muddadii maalmihii dhowaa la soo dhaafay waxaan rabaa inaan marka hore wax yar oo hordhaca ka bixiyo marxaladihii aan soo marnay. waxaan rabaa inaan sheego weliba inaan qaban doono shir ama kulan aan kaga hadli doono si faahfaahsan marxaladihii waddanku uu soo maray gaar ahaan Jubbaland iyo xaaladeedu halka ay soo martay doorashadii ka hor iyo kadib. laakiin waxaan tan rabaa inaan maanta ku soo koobo marxaladda taagan iyo sida ay ahayd. waxaanu isugu nimid Samareeb 2 madaxweynaha jamhuuriyadda, ra'iisul wasaarihii hore iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. waxa aan kaga hadalnay waxay ahayd in xal laga gaaro gobolka Gedo, guddi loo saaro. guddidaasi inta aan Samareeb 3 la isugu soo noqonin ay iyagu ka soo tala bixiyaan xal laga gaaro, iyadoo markaa dowladdu ay ka shaqaynaysay ciidamo lagu daldalayo culaysyo badan oo la gaarsiinayay dadka iyo dhibaato dadka la dhex dhigayay. muuqatayna inta ka horeysa shirka dambe intaanaan isugu imanin in tallaabo la qaado. arrintaana madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxdii kaleba aanu ka wada hadalnay. ma ayna dhicin Samareeb 3 ma aanaan imanin sababo jiray awgood oo arrintii xukuumaddii iyo waxyaalihii dhacay baa sababay. wax tallaabo arrintaa laga qaado mayna jirin. Sebtembar imaatinkii aanu nimid Muqdisho waxaan beesha caalamka iyo xukuumaddaba u sheegay inay igu adag tahay inaan shir ka qayb galo iyadoo dagaal uu ka taagan yahay gobolka Gedo. maalintii garoonka aan kula kulmay beesha caalamka iyo xukuumadda ciddii aan ka arkayba waxaan u sheegay culayska naga haysta shir inaan ka qayb galo xaaladda ka socota gobolka Gedana aanan mas-uuliyaddeeda qaadi karin. doodeer ka bacdi waxaa ii soo baxday shirkaa inaan ka baaqlaayay inay caqabad ku tahay masiirka ummadda Soomaaliyeed. waxay noqotay inaan u tanaasulno oo aan ogolaado inaan shirka ka qayb galo lagaga hadlayo arrinta doorashada iyo masiirka Soomaaliya. inta shirkaasi uu socdana midda kale ee dhibaatada gudaheedeen markaa tirsanaynay ee Jubbaland ka jirta inaan gudaheeda ku shaqayno. inta ay maqnaayeen madaxdii kale aniga iyo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo waanu kulannay. waxaanu ku heshiinay inaan ka shaqayno guddi saaro la soo ururiyo sidii xal looga gaari lahaa arrinta taagan ee gobolka Gedo. madaxweynuhu nin buu soo magacaabay ahaa taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin, anna nin xildhibaana baan ku soo daray. waxaan ku nidhi tala noo soo jeediya oo waxaad keentaan Geelle Jaamac Mursal iyo Fahad Yaasiin tala ku eg xaaladdan wixii hadda laga qaban karay. waxay soo jeediyeen in la qabto guddi wada jir ah. guddidaas inay soo jeediyaan xal sidii looga gaari lahaa arrinta gobolka Gedo, maamulkii sidii wax loogu qaban lahaa, sidii dhibaatada taagan xalkeeda loo gaari lahaa. dowladda federaalka iyo Jubbaland waxay isku haysay gobolka ku saabsan loo sameeyo oo guddidaas ay uga howlgeli lahayd muddo koobanna loo cayibi lahaa inay arrintaas ku dhammaato. waxba mayna ka dhicin. madaxweynuhu isagaa ballantaa ka baxay. shaqadii aan isku ogeyn oo dhanna dhinaca kale u rogay isagoo markaas waxyaalo aan munaasab ahayn ama aan madaxweynenimadiisa u qalmeynin ay noqotay waxa uu hadafka ka dhigay oo ay ahayd doodo ku saabsan arrinta Jubbaland iska daaya waxa caqabadu Gedo ma ahayn Kismaayo ka jirta. isagoo xusay markaas waxyaalo aanan hadda inaan sheegay ay ceeb ugu tahay oo ay ka mid tahay reer iyo qabiil iyo Kismaayo iyo hogaamiye kooxeed iyo waxaana la isku hayaa iyo waxaana la isku hayaayo aan igula hadlin cod madaxweyne uu ka hadlayay wax si jufannimo ah ku saabsan.
taas waxay soo gaarsiisay inaan shirkii idhaahdo haddaba kama qaybgelayo saaxiibaday markii hore madaxweynaha puntland baa nagula jiray dibheshiisiinta iyo negotiationka aniga madaxweynaha naga dhexeeyay madaxweyne qoorqoor cabdicasiis waare iyo cumar finish yaa waxay qaateen marka waliba saddexda madaxweyneha kale ah intii hore idinka qoys u wada shirayo isla socday waxaan rabnaa inaad shirkana nala dhamayso hawshana aad nala qaadato kabacdi annagu aanu gallo waxaan kuli iga daayay arrintaasi way adag tahay ninkaana nin u socda maaha waxaa dhacday markaa inaan sida ugu sharafta badan ee loo dhammayn karayo aan u dhammaynay isla qaadanay labada goobood sida loo qaybin iyo say noqonayso doorashadiina aan go-aankeedii 17 September sidaa ku gaaray intaasi markay dhacday waxaan ka hadlay oo ka mid ah qaybta hadalkii aan ka hadlayay madaxweynuhu stateka dhexdiisa u taallaa siduu u qaybsanayo kuraastiisa ee labada magaalo ugu qaybinaya maadaysi maya buuro 2016 waa la qaybiyey idinku kaan hadda soo yeedhin waan sheegnay waan dhammayn waxay noqotay in nooc loo kala saaro gobolkii oo qabailada qaarkood oo labada meeloodba degaya la yidhahdo hal meel bay wada degaana madaxweynuhu isagoo dan kale markaas uu riixidaa keenay saaxiibaday markay hawshii dhammaatay jawaab lagama helina nin waliba wuu dhoofay ilaa waa heshiiskii waa la gaaro maalintii aan tagay Kismaayo 3 maalmood kadib waxaan furay shirkii golaha baarlamaanka ee heer dowlad goboleed furitaankii shirkaan kaga hadlay mowqifkayga sida wax loo qaybiyey aragtida aan qabo taasay ahayd waxay ku salaysan waan ka hadlay waxaan halka u arkayey sida waxu jireen qaybinta la qaybiyey iyo inuu madaxweynuhu lahaa ku tagrifalkeedii riixideeda waana la ogaa waana hadal duuban oo yaallo ah maana ka helin wax jawaaba waxaa nagu soo noqday ma jiro halkaa iyadoo taagan tahay waxaan muddo 4 bilooda ku baaqaynay iyadoo markaa 3 qodob oo ka mid ahaa qodobadii laga hadlayay doodoodu soo noqotay ka mid ahayd guddiyadii la soo saaray oo laga cabanayay sharxiinta ay ka cabanayeen oo lalahaa waxaa ka buuxa nabad sugid iyo shaqaale dowladeed oo ay ku jirtay in arrinta Somaliland iyo xalkeeda la helo oo ay ka mid ahayd arrinta gobolka Gado oo markaa ciidana lagu daabulayo caqabadana ay jirtay waxaan marar badan meesha caalamkana u gudbinay dowladda Soomaaliyeedna kala hadlay waxa aan ka hadlaynaa waa ummad iyo masiirkeeda shir ha la isugu yimaado ha laga wada hadlo si loo hadliyo qodobadan aan ka hadlay intaas oo bilood lagama jiro waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo 2016 waxaa jiray bilaha qaarkood oo hal bil shirada la isugu yimaanay 2 goor si xal looga gaaro mas'alo yar oo markaa soo baxday khilaafkeeda saddexdan arrin oo gobolka Galatiisu ciidamo lagu daabulayo dagaal la abaabulayo xuduudo la xirayo dhibaato la abuurayo ay tahay wax ka sii weyn iska daa in doorasho xaalad ka sii adag lagu jiro waxaa dowladdii mas-uuliyiintii dowladda federaalka ay qaadan waayeen intii shir la isugu yimaado in xal laga gaaro ama loo yimaadaan ama aan u tagno ama isu yimaado waxaan fursad ka helay Garoowe shirkii ay qabatay Heritage kaasoo aanu isugu nimid madaxdii qaranka marka laga soo tago madaxweynaha xafiiskiisa sababta ra'iisul wasaarahana waa laga joogay iyo 2 state oo ahaa Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed inta kale meeshaan ku sugnay dood dheer kadib oo labada aqal guddoonkooda ay joogeen waxaa la yidhi maxaa xala waxaanu qaadanay Jubbaland oon tanaasul ku samaynay war arrinta gobolka Gado waa caqabad taagan caqabaddaa waxaan u baahannahay in laga gudbo si looga gudbo waddankuna uu doorasho u galo khalkhal kalena uuna u sii gelin waxaa muhiim noqotay oo aanu soo jeedinay arrinta gobolka Gado in xalkeeda guddi loo saaro waqti muddo ay noqoto la cayimo laga shaqeeyo arrinta Garbaharre iyo doorashadana si waddanka doorashada uga dhacdo firaaqana uuna u soo bixi oo madaxweynaha maanta halka maalin u hadlay iyo sharci darrada waddanku uu ku dhacayeena ayna u imanin inay magaalada Garbaharre maamulkeedii guddoomiyihii degmada iyo gobolka iyo boolis la keeno Jubbaland oo maamulka la shaqeeya iyo Amisom boolis dowladda ay soo wareejiso gobolka intiisa kalena laga qaado guddiyo iyo marxalado
lagu gaarsiin karo dib u heshiisiin tallaabadaa la qaado oo dib u heshiisiintaas weliba ay keenayso dadkii reer Gedo ee maamuladii ku jiray labada dhinacba in la isku keeno la heshiisiiyo maamul ka kooban dadkii oo dhan iyadoo aanan odhanaynin hebel xagganuu jiray iyo xagganuu jiray inaan maamul isku dhafanaan u samayno ciidankana wixii dheeraadku ahay markaas Gedo ama daawo meel kaleo banaankaa looga keenay ama Jubbaland gudaheeda ha noqoto ama xamar iyo dowladda federaalka ha noqotee inaan labadaba intii laga celiyo dadkii ciidankii la iska hor keenay dowladdu ay dhibaatada u geysatay aan isu keeno la isku dhafo la walaaleeyo wixii dhexdooda lagana ambaajino ka dacna sidaas maamulkii lagu soo celiyo iyadoo cid walba laga tixgelinayo Axmed Qoorqoor madaxweynaha galmudug arrintaasaan u soo diray oo aanu siinay kama hadlaya hadda jawaabihii soo baxay waxay ahaayeen kabacdi intaas waxaa dhacay iyadoo weli uu baaqi iyo hadalkii taagan yahay inaanu ka hadalno oo laga hadlo caqabadda xuduudka ka jirta iyo dagaalka dhacaya iyo ciidanka isku dhaca ka iman karaya iyo ciidan inuu shabaab iyo u dhexeeyo ciidan kale oo cadow ciidankii la isaga dhigay inayna socon karayn si kontarool la-aana markaa inuu dagaal uga dhacay beled xaawo in ka badan 70 qof ay ku dhimatay in ka badan intaas laga qabtay kuwa dhaawaca lagu tuntay kuwa la dhaawac tiray laga dhigay inay yihiin wiilashii shalay dhufayska ku wada jiray nimankii jarmalkii iyo naazigii iyo dowladihii kale isbaasigii kale ku dagaalamaya dagaalkii labaad sidoodii oo kale in loola dhaqmo oo ciidankii Soomaaliyeed iyo dowladnimadii iyo waxay dowladdu sheegaysa meesha ay ku baamaan intaasoo culays kadib oo sheegay oo loo arkay weliba lagu yiri ciidankani waa Kenya kuwana waxay difaacayaan xuduudii dalka Kenya oo Kenya waddan ku soo duushay waxaa aad su'aal cajiib ah loo qoslahay in ka badan 700 kilomitir bay Kenya iyo Soomaaliya xuduud leeyihiin 5 kilomitir waa number aad kilomitir aad u yar in Kenya laga difaacayaa leeyahay xuduudka intaa leeyna 42 goobood ay ku sugan yihiin ciidanka Kenya gudaha Soomaaliya in ku dhow 3800 askari ay ka joogaan xuduudka intaa leeyahay kalena u bannaan yahay in la yiraahdo ciidankani wuxuu difaacayaa diyaaradaha maalinba loogu soo daldalayaa 5 kilomitir buu Kenya ka difaacayaa maamulka Jubbaland waa daba dhil faaxmada jaajuus ku yahay كانوا نقولها وحن تاريخ حتى صومالي هرب صومالي أنت أصلا لو على كذب دجال كاس وحين نقطة اللي يسوي ما يدري هذا ولا كذب إن أقرانه إن نسيب إنه جدي كنا بعنا شيء لا وحنسيب إنه جدي وعلى شذا دراد المركب عن نوجري هكذا نوجري سيديت الجدي لا الشركة كنا وحين كانت إن الشركة يسوي ما يدري صورنا يلا أنا الله كنا مقدسه sababta anagoo doonayna inuu noqdo shir ballaaran international community axsaabta dadka danaynaya kulligood in la wada xaliyo sababta kuwa mucaaradka iyo musharaxiinta laftooda xaq waxay u leeyihiin tabashadooda in la dhageysto laakiin in aan meel kale intaan u soo baxno la yidhaahdo inna waan isku koobnaana waxaan ka doorbidaynay meel agsi loo wada leey iyadoo marka aniga culays ay igu ahay oo marka Samareeb iyo la yidhahdo Muqdisho ay tan ii fiican tahay amni ahaan iyo nolol ahaan intaba oo culayska aan Muqdisho ku dareemayaan ku dareemay haddana waxaan u qaadanay riskiga waxay ahayd inaan la xaliyo guud ahaan cidda wax tabarayso intaa ka bacdi waxaanu nimid Samareeb afar shirkii ugu horeysay galay madaxweynuhu wuxuu yiri Jubbaland iyo Puntland baa shirka soo dalbaday iyagu ha sheegay waxa laga wada hadlay ani ma aha nin ay wax ka maqnaayeen ما هن مدحونه مسؤولية صارت ما هن مدحونه أو عقبة تاجن يوضح وماشي قصة على الجرني وحنا كوسي عشيبسن مدحونه مركو إيمان إنه يكون باقي شركة إنه تجي شنطة بشع برلمان كلا ولا قال الله كله وواحد جرنا يسوي ضرب إنه لا لا مركانه اللي هذا الكلام بالله وحكون مدحونه وهدي أنا قاعد بيسويسي صدق العقبات بتاجن وحل وباهن إلا جاري waddankii doorasho u baahan yahay waxa kaliya process-kan uu ku sii socon karay waa xal siyaasadeed in la gaaro haddii xal siyaasadeed la gaarin maanta baarlamaanka sharcigiisu uu dhacsan yahay waqtigiisu uu dhammaan
madaxtooyada waqtigii intanaa oo dhiman waxay ku jiri karaan oo keliya political agreement in la gaaro sababta waddanku waa federal steedyadana siyaasaddii waddanka matalaya ra-iisul wasaarihii baa jooga waxaa intaa ka dambeeya caqabad baa imanaysa maanta aynu gaarnay heshiis saddexdii qodobna aan ka wada hadal saddexdii qodob waxaa la yidhi ha laga hadlo guddi ha loo saaro aniga oo ah madaxweynaha jubbaland guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha oo goobjoog loo ahaa waxaa la yidhi waxaad ka soo tala bixisaan labadii qodob ee kale arrinta ku saabsan somaliland iyo cabashada ka jirta iyo arrinta ku saabsan guddiyada doorashooyinka iyo caqabadihii laga qabay waxay noqotay inaan khadka soo gelino oo aan isugu la hadlo guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo aan ku nidhaahno niman yaho odayaal baa tii mas-uuliyiin baa tii dowladda federaalka axzaab mucaarad kulli intaad ka baxdaan idinku dadkaad mas-uulka ka tihiin xalkooda ka shaqeeya guddiyadooda doorashada nooca u dhacayso isu taga go-aanna na soo siiya wixii intaa ka dambeeyana go-aankaad soo gudbisaan waxaa idinla wadaagi doona maamulkeeda yeelan doona ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya tii kalena aanu tala ka soo bixinay oo aanu keennay in la qaato in laga saaro dhammaan wixii cabasha ay ka jirto ama ha noqoto ciidamada guddiyada ku jira ama ha noqoto mataqaanaa shaqaalaha dowladda ee rayidka ah ama ha noqoto ciddii kale caqabad tabasha ay ka jirto in laga saaro oo dad lagu qanci karayo ay noqdaan dadka la geynaya meesha ee guddiyada lagu leeyahay arrinta jubbaland waxaa loo xilsaaray 4 madaxweyne puntland galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxay soo jeediyeen qorshe ah in arrinta gado guddi 4 dowladood ka kooban oo wasiiraha ay galaan laba laga kala dhigo guddidaasi muddo cayiman dib heshiisiin gobolka gado ay ka sameeyaan arrinta ku saabsan garbaharre iyo doorashadu meesha ka dhacaysana inaan maamulkii u dirno guddidiina la geeyo ciidan amisom booliisana la geeyo doorashadana sidaa ay kaga qabsoonto waxay yidhaahdeen markaa adigu tala dib ugu noqo guddidaadii iyo dadkii kula socday la tasho sidaa hadaya waayahay baan ku weli talaan soo gaarnay halkanaa nimid waxaan u imid mas-uuliyiintii kale oo guddoomiya gobol ka mid yahay oo wasiiradii ka mid yihiin waxaan idhi arrintaana jirta maxaa xala in guddoomiyaha gobolka la iska daayo guddoomiyihii degmada la qaato ciidankii aan geyno oo amisom booliis ay tagto guddigii loo diro sidaa la yiri intaas aan u gudbiyey saaxiibaday haddana intaan meesha joognaa shirar la galay doodo badan baa la soo celiyey shirar badan baa laysku noqnoqday mar walba markaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlayey arrinta gobolka gado jubbaland roolka yeelan karta wuxuu noqon karaa oo keliya inay guddiga doorashada soo dirto guddiga doorashada hadday noqotana dee waxaa meesha yaalla haddaan guddoomiyihii degmada iyo gobolka oo labaduba reer garbahareya oo ka soo jeeda la yidhi haddii madaxweynuhu intuu abaabul sameeyey waa la dhagax tuurayaa lama ogola oo ma tegi karaan ma waxaan u diri karaa guddi doorasho oo soomaali ka kooban oo soomaali qabaa'il kala duwan oo laga yaabo reer garbaharey inaan cidibo kaga jirin intaan u diro miyay noqon karaan inay iyagu ka shaqeeyaan oo guddidu ayna lahayn maamul la shaqaysa sababtoo guddidani bulsho rayad bay la maamultamayaan waxaa lala dhaqmayaa maamul waxaa lala dhaqmayaa dhaqan waxaa lala tacaamulayaa dhalinyaro intaasoo dhan marka haddaan jirin maamul wixii u dhexeeyahay guddidu waxama qaban karayso haddiise iyagii aan la ogolayn guddoomiyihii iyo gobolka iyo degmada ma waxaa tegi karaya markaa guddi kooban oo soomaali ka kooban oo iyagu magaaladii wax ka qaban karay doodaasi markay dheeraatay kabacdi waxaa isku noqdeen nimankii madaxweynayaasha ahaa ee dowlad goboleedyada ee afarta ahaa iyo waxay soo jeediyeen haddana iyadoo markaa aan ogolaanay guddoomiyaha gobolka iftiiba la reebo guddoomiyaha degmada iyo in la qaado intana ay marto in tala ah axmedow guddoomiyihii u kaadi degmada waxaan rabnaa guddi inaan u diray garbaare guddidaasi inay ka soo shaqeeyaan in
ay dadka la kulmaan dib u heshiin sameeyaan ay soo jeediyaan dadka bal qof kale oo aan hadda guddoomiyaha jooga ahayn ay soo barboos gareeyaan oo la yidhaha qof kale dadkii isku raacsan yahay waxaan rabnaa guddoomiyaha degmada inaad qofka jubbaland usoo magacawdo kabacdina qofkaasi uu noqdo maamulkii jiray isaga iyo amnigiisii lagala shaqeeyo amisom booliis la keeno guddidii la geeyay sidaa ay ku shaqayso warka laygu soo celiyey waxay madaxweynuhu inuu yidhi maya haddii jubbaland ay magacaabaysaba guddidu ha soo jeediyeen odayaasha ha soo jeediyeen haddii magacaabisbu jubbaland ay ku leedahay ma aqbalayo oo dhibaataa dhacaysa ma kari karayo markaa anugu guddi inaan khatar geliyo laleeyahay guddoomiyihii ay la shaqeynaysa haddaan magacaabo dhib baa ku imaanay waxaan isku daynay wax kasta oo tanaasul aan samayn karta inaan samayno waxaan soo jeedinay oo kale haddii ay sidan tahay arrinta doorashada barintii loo kaadiyo dib u heshiin ha la galo gobolka gado oo dhan ha laga galo garbaari ha laga bilaabo ciidamadii ha laysku dhafo maamuladii ha lasoo waxeeyo gobolkii ha lagu soo celiyo jubbaland gacanteeda kabacdina doorashadii inta broseyska kale uu socday gaaraysahay ha la qabto arrintaa iyadaa madaxweynuhu uu ka goosqabsaday waxaan rabaa inaan idhaahdo dagaal baa jiro wiilal baa dhimanaya mushkilad baa taagan oo dhib baa jira waxaa madaxweynaha u sheegay madaxweynuhu anigu kuraasta masharax mayhi dan kursi kabaliyi laakiin waxaan rabnaa doorasha inay dhacdo xataa hadday adig kuu soo wada baxaanood kulli aadu ka shaqaysanayso waa sideeda wax kuu yaalla laakiin ladaa lagu yidhi broseyska ka dhexbaxo kaambeynkaaga ku jira intaan waqtigaa kaa dhamaanin waxaan ha kaa dhacdo doorashada ha dhacdaa golo mayna dhicin intaasoo dhan madaxweynuhu wuxuu ku soo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo soomaaliya ka mida oo degmo ka mida gobolka gado oo kuraas ay taallo uu yidhaahdo aniga unbaa ka talinaya haddaba madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday seebuu soomaaliya u xukumi karayaa hadduu hal degmo sheegtay oo uu yidhi anaane oo anaa ka soo jeeda oo reerka yagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskale suurtagal miyay noqonaysaa madaxweynuhu soomaaliyada kale oo dhan inuu isagu mas-uul ka noqdo oo uu yidhaahdo anaa soomaaliya madaxweyne ka deegaan iyo leebalka intaa leegna inuu ku kooban yahay wax dhici karaya maa waana arrin aad iyo aad looga waxnaa waxaan ku baaqay waxaan diyaar u ahayn wax kasta oo laloo soo jeeday waxaan u taagnayn si kasta oo doorasho nabada ay ku dhici karayso waxaan ka xumahay in maanta ciidan soomaaliyeed isku hor fadhiyo oo wiilashaa maanta wax qaban kara ayga jira waxaan ka xumahay in maalin walba diyaarado rasaas iyo qoryo iyo baabuur wada gobolka gada lagu sii wado lagu daldalo oo maanta deegaanada intoodii kalena ee jubbaland dalab maanta rasaas baa ka taalla al-shabaab kula dagaalamaysa waxaa la yidhi jubbaland weydiista ha idiin soo qaaday diyaarad dowladdu ima heli sakiradeeda s n a baa la yidhi waxba idiinma heli karayn ciidan s n a oo dhow la isku dilaa maxkamad la yidhi ha loo soo diro dowladdu waxay tiri uma hayn maalin walbana 5 falayd 6 falayd baa tagta oo ka degta oo shaqo ka qabata oo hub geysa oo rasaasaysa dhibaato aada u weyn weyn waxaan diyaar u ahayn oo intaa ka hadlayn oo meel caalam iyo madaxda soomaaliyeedba kaga hadlayna war waddankaan hala badbaadiyo maanta waxay taagan tahay in madaxweynihii uu ballansaday baarlamaan waqtigiisii dhammaaday iyo isaga oo beri waqtigiisii ay ka hadlay waxaan rabaa baarlamaanka soomaaliyeed inaan u sheego waddankan dhibaataha gelinida su-aal baa imanaysa 4 sano madaxweynahaan arkay waddan ma maamulaynin yaa maamulayay xaggeesa waddankaan uu ku socdaa 4 sano kadibna sharciyadda maanta baarlamaan lagula hadlayo iyo waxa la soo saaraya maxay noqonaysaa soomaaliyay dagaal qabiil ma aha dagaal sokeeyo ma aha 91 ma aha system iyo dastuur baa leenahay isaga hala ilaaliyo ra-iisul wasaare jooga xukuumad ka hertee karaa jiri karta waxay la tahay in dadka soomaaliyeed si degan iyo beesha caalamkaba waddankan arrintiisa looga fiirsado waxa uu xalay ninka hadlaya magaca dowladda ku hadlayay aqriyayeen wax sax ah mayna ahay inta barobooskay soo jeediyeen madaxduna waa la yaqaanaa inta aan compromise-ga laga tanaasulna waa la yaqaanaa waan ka hadli doonaa markaan kismaayo nabad ku tago haddii ilaaha yidhaahdo taariikh dheer baan ka hadli doonaa doorashadii jubbaland baan ka hadli doonaa 2 sano ka hor oo waddanku dowladdu ay diiday in shir la isugu yimaado yaan ka hadli doonaa aad baad u mahadsantiina hada wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu